mararka qaara waxaa laga yaabaa madaxweynaha oo Istanbul u socda inuu maqlo hotel uu madaxweynaha ku sii degaayo inuu ka sii hormaro sii dego soo madaxweynaha u arko waana la taliyaha madaxweynaha informationadu wuxuu weydiinayaa wararka wuxuu weydiinayaa dadka madaxweynaha ku dhow xogeenadiisa iyo ilaalada iyo wixii intuu number ka heli karo uu leeyahay madaxweynihii intuu ka degaaya hotelkaas dabaqa koowaad uu ka degaa leeyahay koowaad madaxweynaha maadaama securitykiisa la ilaalinayo aan la ogoleen labaad ku degaayo sidii jaranjarta ugu soo dego oo madaxweynaha u arko siyaasiyiinta Soomaalida qof iska socdo ma jiro qof kasta dawladu xiriir la leeyahay qof kasta siyaasi ah dawladu xiriir la leeyahay oo saaxiib la yahay u leeyahay maxay tahay danta ku jirta dagaalka al-shabaab lagula jiro laba qof dhabka yahay maxay tahay sabab waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad waa la camiraya waxba jira laakiin waxa ka tagay shabaab naftirkiisa waa lagu dhex jiraa rag dawladda jaasuusin oo ku dhex jira qaar waxa jir la taliyaala kaararkii la taliyana ka dhacay villa Soomaali kaar waxay sameeysaa 12 bilood ku eg sanadka 12 bilood Soomaa ay sameeysaa wallahi la taliyaal waxa jir madaxtooyada villa Soomaali ka tirsan kaararkii ka dhacay inay madaxweyne arkaan iska dhaaf taliye hadlaaya hadaad aragto waxa ku tiraada kaarkii sanad laha aha ma dhacay mise wali intaas kali ku dheh hal company ayaan rabaa inaan uga digo inaysan u maleyn inay al-shabaab ku dhex nabad galayaan companygaas waxa la yiraahdaa shirkadda Hormuud waxa aad qabowdaa naftu ay khushuucdaa marka aad quraankiyo qowlka iba barateed qalbigaaga galisa ubadkood qurxisood qowlka iba bartaad qiimaha adduunkiyo aakhirana ku ceeshta qaar kalena ku darso qowlkii nabiga Allahumma salli ala Muhammad علشان حديثكيو فقهي فنون كلا أياد فائديسا مدرسة معلم قرآن أونلاين أو دورية 10 سنة جيستي waxa wax ka dhiga macallimiin khibrad dheer u leh qaabka ugu fudud ee wax loo baro caruurta qurbaha ardaydu waxay casharada ku qaadan karaan qaab online waqti kasta iyo meel kasta oo ay caalamka ka joogaan معلم قرآن أونلاين waxa lagu bartaa xifdinta quraanka kariimka farbarka ilmaha barashada xadiiska fiqiga iyo culumta kale ee islaamka wixii faafaahinayntaas dheer kala xiriir تلفون شاشة كحرن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل وناكسن كسر دوادة ورئيس جارة وحمرتي جوا مدن عبد الستار حسن علي مركز صدحات ورئيس سيو SST في عبد الستار آدم وفر حسن هين مركز يسلو طبعا لما تشرو هراء أيام ورئيس كقاضي هذا نوع مركز صدحات سلو. وما سنتهي نور آدم كأجمع هذا علينا يا إنان كلنا مركز صدحات سلو. وعبد الستار هؤلاء بدن بتاعن وحنشالها هنا إنه بال iskaway diinaba wax ka weydiiyo Soomaaliya marka laga hadlayo waxay ku jirtaa xaalad adag oo dhinaca dagaalka marka la fiiriyo amaanka maxaa ku muuqda wax socda Soomaaliya waqtigan la joogo waxa ugu weyn oo laga hadli karo oo ka socda la dagaalanka ururka al-shabaab wuxuuna ka socdaa gobolada dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan gobolka Galgaduud nuuro waxa la socotaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu magaalada Dhuusamareeb uu joogay muddo bil ku dhow laba toddobaadna uu joogay degmada Maxaas 4 maalmoodna uu joogay degmada Aadan Yabaal haddana uu Dhuusamareeb dib ugu noqday madaxweynaha iyo dadka ku dhow dagaalka dhabbu ka yahay markaan ku leeyahay madaxweynaha iyo dadka ku dhow waxaan sheegayaa taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dagaalka dhabbu ka yahay laakiin markii hoos loo sii daadego xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo qaar ka mid ah horjoogayaasha qabaa'ilada waxaad u moodaa wax xoogaa qabiilkii rabay in ay shabaab iska dulqaadaan qabiilkii iyo madaxweynaha waxa u dhaxeeya hogaamiyaal aan ku tilmaami karo danaystayaal siyaasadeed markaan ku leeyahay danaystayaal siyaasadeed tusaale
laf ka mid ah beesha Habargidir mar rabo inaan magaceeda sheego jufo ka mid ah ayaa qof siyaasi u ah dhinaca madaxweynaha u dhow wuxuu soo abaabulayaa beeshaas ama jufadaas beesha Habargidir ka tirsan hubka iyo awoodda ay haysato waa la soo bandhigayaa madaxweynihii report la siinaa lacaga lagu soo qaadayaa lacagtiina dadkii dhabta ahaa oo jufadaas ahaa oo sidii dhabta u dagaalami rabay ama dagaalka shabaabka oo dhabka ahaa lama gaarsiinayo meel dhexe ba wax lagu kala qaadanaya wax kala qaadanaya siyaasiyiinta wax u doonay qabiilkoodii oo madaxweynaha kala dhiilgareeyay la dagaalanka ururka al-shabaab boqolkiiba wixii loogu talagalay shabaab laguma bixiyo la dagaalankooda meel dhaxal lagu kala qaadanaya maxay tahay sababtu niyow sababtu hadda ka hor ayaa nin odaya wasiirka maaliyadda Soomaaliya ahaa Cabdiraxmaan Ducaale Bayle uu yiri Soomaaliya waa mashruuc marka mashruuc socda ayaa wax ka qaadan kartaa mooyee wax shabaab lagula dagaalamayo qofkii naf ka raadiyo soo shabaabka le mu kobcinaya awoodoodu soo marka faa'iidooyin laga dhex raadinaya la dagaalanka al-shabaab faa'iido dhaqaale laga raadinaya soo marka wax ka xun Soomaaliya soo mari doona oo aan al-shabaab ahayn ma jiro qofkii maanta al-shabaab la dagaalankooda faa'iido ka dhex raadiyo faa'iidadaas maalmo kadib way ka dhamaanaysaa laakiin qofkaas nimankaas haday awood dambe ay yeeshaan ma yeelan doonaane asigay dib ugu noqonayaan Alstan marka laga yimaado Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Maxamed Salaad yaa kala dagaalku dhabka yahay labadaas qof aan arkan wax kala dagaalka dhabka yahay oo dawladda ka tirsan wallahi insan jirin nuur ani maxay ugu taqaanaa run iyo si xogaalnimo ah dadka taageerayaashayda ah ama dadka Soomaaliyeed elite-ka siyaasadda ku jira ama shacabka inaan waxba ka hakranin oo information ah dagaalka al-shabaab lagula jiro laba qof dhabka yahay maxay tahay sababta waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mahad Salaad iyo Xasan Sheekh Maxamuud sababta iyaga uu dhab uga yahay dad kale oo dhab uga yahay nafaansi maxay tahay hadafka xukunka Soomaaliya oo maanta mas'uuliyadiisi ay ayaga hayaan ay rabaan berito markay ay joogeen waxa ay dalka u qabteen iyo waxa ay sameeyeen I think waxa u maleynaa labadaas qof go'aan waxay ku gaareen wax la taaban karo maadaama laba teeram madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud teeramkii labaad uu maraayo teeram saddexaadna aysan suurtagal ahayn madaxweynaha inuu ku soo laabto madaxweynaha wax la taaban karo uu rabaa inuu Soomaalida kaga tago tusaalan ku siinaa wiilkiisi ayaa ka tirsan ilaaladiisi oo aan wada aragnay asigoo booshash xiran AK47 u saaran yahay gaariga madaxweynaha uu ku waday shirkiisa hore oo aabihiisa ka furaya baabuurka haddii aruurtaadi aad dagaalka gelisay haaskaagan ay kula joogto ay dagaal ku jirto wax uu soo reebtay Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gadaal u jira miyaa jira aruurtiisi iyo haasiskiisa ku jira dagaal dhuusa mareeb ay dhex fadhiyaan laakiin dhuusa mareeb waa magaalo dagaalkii ma meeshii dagaalka laga xagaayo waa meeshii saldhigii shacabka dagaalka iyo rumorskii informationadii ku soo dhacaayay riboodidii meeshay ka soo dhacaayeen sahaydii meeshii laga qaadanayo shaxdii meeshii laga dhigay dhuusmareeb caasimada gobolka Galgaduud waa dagaalka wuxuu ka socdaa Galgaduud waxa ugu muhiimsan targetka uu yahay degmada Elbuur iyo degmada Galhareeri oo ka tirsan gobolka Galgaduud de gobolkii caasimadiisa dhuusmareeb ah caasimadii Galmudugna waa dhuusmareeb madaxweynihii Galmudug dhuusmareeb uu fadhiyaa
dadkii meesha suurtagal ah ay iskugu imaanayaan waa dhuusamareeb taas waay mid madaxweynaha u doortay inuu dagaalka ka xago degmada dhuusamareeb way waxaa jira toddobaadkan waraysi uu bixiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya madaxweynihii hore aan idhaahdo dowlad gobolka Hirshabelle haddana ka mid ah ergooyinka uu madaxweynuhu magacaabay wuxuu eedeeyay wasiirka gaashaandhigga iyo qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo uu yiri dagaalkan totally dhab kama ah iyagaana waliba wasiirka si gaar ah wuxuu yiri isaga maaragtay mixnad iyo maaragtay dhibaato ku ah dagaalka socda adigu ma waxa waafaqaysaa xogta uu bixiyay waare in ay wax jirto tahay aniga waare xogta uu bixiyay mana ku taageerayo mana ku diidayo laakiin waxbaan ka dhihi doonaa waxaan ka dhihi doonaa waxay tahay hadda ka hor waraysigan aad iga qaadayso waa waraysigii saddexaad waraysigii labaad waxaan kugu sheegay inay jiraan dad fara badan oo la taliyaal ah dadkii ay la talinayaanna aysan arki karin soo taada koor kuu sheegay tusaale qof baa wuxuu ku leeyahay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha gargaarka bani'aadanimada ayaa ahay madaxweynihii isaga 60 maalmood isma arkin mararka qaar waxaa laga yaabaa madaxweynaha oo Istanbul u socda inuu maqlo hotel uu madaxweynaha ku sii degaayo inuu ka sii hormaro sii dego soo madaxweynaha u arko waana la taliyaha madaxweynaha hotelka ugu sii hormaraya wuxuu waliba informationadu wuxuu weydiinayaa wararka wuxuu weydiinayaa dadka madaxweynaha ku dhow dhow xogeenadiisa iyo ilaalada iyo wixii intuu number ka heli karo uu leeyahay madaxweynihii intuu ka degaya hotelkaas dabaqa koowaad uu ka degaa leeyahay koowaad madaxweynaha maadaama securitykiisa la ilaalinayo aan la ogoleen labaad uu ku degayo sidii jaranjarta ugu soo dego oo madaxweynaha u arko markuu imaado meesha madaxweynaha ku degan yahayna waa la celiyaa waxaa celiyaa madaxweynaha securitykiisa marka la taliye aan madaxweyne arki karin in howlgal madaxweyne uu wado howlgalkan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hogaami u ah wasiirka gaashaandhigga hadduu soo xumaado tusaale policy ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu awoodaa qof kale inuu ka dhigto wasiirka gaashaandhigga asigoo kala tashanaya ra'iisul wasaare uu yiraahdo ra'iisul wasaare wasiirkii gaashaandhigga nagu xumaadee ninka kale noogu bedel finish wasiirka howshiisa waa dhamaatay dadka xukuumadda ku jira waa saas haday soo xumaadaan rashafal wax liiraa lagu shabeeyaa rashafal isku shaandheena lagu sameeyaa qofkii soo xumaado ama qofkii gala waxyaabo ka baxsan bolosiga dawladda tusaale wasiirkii maaliyadda دكتور علمي سو دولته كوميتمنت اوي ولا بدله وزيرك حماده مدحوينها رئيس وزراء waxay awoodaan inay ka tashadaan daaqad laga saaro way bedelayaan daaqad ka saarid waxa waaye waa qof la qaaday daaqad laga tuurayo amal waa reshafal ay ku sameeyaan booska laga bedelaya daaqada laga saaro hadaa tiraado madaxweynaha rئيس وزراء isla qaada daaqada ka tuurayaan ay u dhigataa bogta وصعدها مرك وار شفا ها مرك مشكلة ما بلا هم هالقال كان حسن شيخ محمود أيا هجامي ما هن إنا أركتو جامع ما هن إنا أركتو تليا ميلتري إبراهيم شيخ محدين ما هن إنا أركتو هجامياش إذا ماذا رجولياش هذه هذا نورا لوي هذا ورياتها ورئيسنا يسا wax waraysigaada iyo hawshaada ka baxsan kursiga ku fadhida hadaan la hadla ka waran oo adoo ila fadhin taasay ka dhigantaa howlgalkan Xasan Sheekh madax ka ah jaamac madax ka ma ikadi jaamac inuu madax ka yahay waa la ogyahay laakiin adiga marka aad fiiriso si gaar ah aad markaan ku weydiiyay jaamac shaqada hadda uu qabanayo iyadoo uu joogo taliyaha ciidanka isagoo wasiirka gaashaandhiguna waxaa leeyahay policy-ga wasaaradda isku shaqeyn leeyahay inuu dejiyaa laga rabaa shaqada laakiin hadda uu qabanayo adigu ma u aragtaa inay tahay shaqadii uu xaq u lahaa oo qaban lahaa wasiirka gaashaandhig niyo horta aan shaqada detailkeeda iyo say u socoto in
boqolkii boqol aan faahfaahiyo ma rabo laakiin waa ku sheegaya wax yar oo kamid ah ayaa shaqadaas ay u socoto kaaga sheegaya Soomaaliya dawladda taageera isku filnaansho military isku filnaansho siyaasadeed isku filnaansho dhaqaale isku filnaansho ganacsi Soomaaliya wali ma gaarin bolosigan hadda lagu shaqeynayo dawladaha taageera waxa kamid ah Turki iyo Imaaraadka Turki Imaaraat dagaalkan lagu la jiro al-shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aad bay ugu taageeraan markii lagu yiraahdo wasiir ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne ama taliye nabad sugid ama wasiir ku xigeen ama wasiir dawle qof intuu meel iska fadhiyo la soo tuugtuugo xil loo dhiibayo ma jiro qof kasta xilka waxa loogu dhiibaa saameyn iyo xiriiro iyo awood uu leeyahay qofkaasi uu ku soo kordhinayo xukuumadda markaas jirta sababta loo sameeyo waa golaha wasiirada hadee han iguma aha hadaan ku sheego jaamac markii wasiirka gaashaandhigga laga dhigay dawladda Turkiga waxa ka bixisay recommendation ayada waxay ku tiri ninkaan wasiir gaashaandhigga laga dhigo si noo xiriiriyo howlgalkayni la dagaalka argagixisada ee Soomaaliya marka Turkiga Soomaaliya waxay u sameeyaan waxyaabo fara badan aan dawlado aysan Soomaaliya u sameeynin ciidamada gorgor liiraado waxa lagu soo tababaraa Turkiga ciidamada harama cad liiraama maqashay marka al-shabaab hoteelada weeraraan inta darbiyada fuul isla markay fashiliyo Turkiga tababara xero Turki som liiraado ay waxay ku leeyihiin magaalada Muqdisho 3 bilood kasto dufcooyina laga soo saara oo tababarayaal ah Soomaaliya taageeradeeda Turkiga safka hore kaga jirta ma fahmaysaa hadii qofkan Soomaaliga ah ayaan xiriirina hawsha aan wadana nagala shaqeynaa hadii lagu yiraahdo qofka Soomaaliga ah hadii hadhowba madaxweynaha Soomaaliya iska noqon karay marka inaad wasiir ka dhigto mushkilad ani ila ma aha laakiin qof ay dawlad kale ay recommendation ka bixisay oo dawlad kale ay tiri booska ha loo dhiibo sidee lagu aamini karaa siyaasiyiinta Soomaalida qof iska socdo ma jiro qof kasta dawladu xiriir la leeyahay qof kasta siyaasi ah dawladu xiriir la leeyahay oo saaxiib la yahay see ula leeyahay maxay tahay danta ku jirta waxay tahay meeqa sana Soomaali burbursanta Maxamed Siyaad Baro miigag wato oo helicopter wato oo Somali Airline oo socoto oo golaha sare ka caanka iyo adduunyo ma maqli jirto ani ma soo gaarin waxaas qorraxda badan aan haysanay dawladaha burburiyay haddana soo qabashadayni dawladaha nagala shaqeyn kara sida aan in nagula haayana fiiri sida aan nahay inaan ku jirnana dawladaha nagu hayn karo ti ilaahay waa gaar raxmadda ilaahay waa badanta waa gaar laakiin dad Soomaaliyeed oo siyaasiyiin xukunka ama haayaan ama soo hayn jirin qaarab wadankooda u naxo dawladaha ay ayaga saaxiibka leeyihiin si fiican wax ugu sheego qaarka kale way bajaajuusaan madaxda dawladda jaajuusaan qaar waxay raadinayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muxuu ku quraacday saaka say dawladii kale u sheegan way tarada madaxweynaha weydiinayaan oo dawladda kale madaxweyne Xasan Sheekh haduu mashaariic cunay haduu uu anjeera malabax cunay maxaa information ma ah waxaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud asiga wuxuu ku quraacday muhiim ma aha marka way diraan waxay leeyihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud saaka anjeera malabax ku quraacday war dawladdan anjeera malabax ma ka taqaan anjeera malabax magaca anaka la baxnay baldayadi qof Soomaali ah oo siyaasi hadda ka hor kugu yiri ma jira dawlada ay jawaasiis u yihiin siyaasiyiin Soomaalida ma aragta ani ka hor ma aragta adi ka socon ma waa la amaraya waxba jira laakiin waxa ka tagay shabaab naftirkiisa waa lagu dhex jiraa
rag dawladda jaasjuusin oo ah ku dhex jiro إيكاد هذا كواس باب قضاء مركل النغنة مركل في سياسيين الصومالي ده حكتنا هذا بحين يعد ستار وحتى السياسي والبدولة كلو يحرر ليه الصومالي أنا ولا جوده شقينا يعني عدة الصومالي ده عدوا واي يعني دولة كلا ده عدوا هين واي فيري هذا على قاربا إن سياسيين أنت تحجشت قفك ده عدة إيه قفك معركة عند عدة هين إنها كسر حصارت ميدان كل شيء وارق وزير جامعة وحكو يري لعقو ببحيا فرما دقالكو لعقو ببحيا وزير جاشان دقا دالتا هاي لعقو ببحينه بحقو ببحينه متقالا مشارك عيدا مدى بحينه راشينك عيدا مدى بحينه شدالك عيدا مدى بحينه لكن كوا كمون هذا النساء مايا وارا وحو يري مدحين وارا وحو يري صاحبكي أنا وصي درس دقي وزيرك وحكو عيدا إنو لعقو ببحيه ده حكمك أيابا إن معركتي بيل لا بحيو أسكرت مشاري ربع مشاركي معه لكن بابورك عبد بالله أو دشيكا صار مركز تعرفنا شدالو ربع إيكاد والفيرة هذيك رالله مدحوينه وارا وحو كهادلay ma aha mushaarkii iyo saadkii ciidamada ma waxa laga hadlay waxa uu ka hadlay gunooyin kale iyo maaragtay hawlo kale iyo lacag laanuusha iyo waxyaabo ka hadlay waxaas marka anaga muhiim ma ama habixiya ama yuusan bixinin laakiin muhiimadda waxaa tir siyaasi walba Soomaaliya dawlad shisheeye ku xiran yahay hadduu siyaasiga dawlad shisheeye ku xiran yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihi iyo wasiirkii iyo taliyihii ciidankuba ay dawladda ku xiran yihiin cidda Soomaaliya ka shaqeynaysa ee la rabo in Soomaaliya ay ileen dal walba dadkiisa maaragtay nabadgelyada soo celiyay waayo shacabka waxa laga rabaa kuwa dawladda ku xiran intay ogaadaan ay buuq ku furaan buuq waa taqaana sama ay tashwiish ku furaan ay dhahan kaas waa jaajuus xukun dambo aan u dhiibanayno ma jiro taasna waxa loogu bixi karaa in Soomaaliya ay gaarto wax la dhaho one man one vote ama qof iyo cod awoodda markay dhinaca shacabka u wareegto finish jaajuus warkiisa waa dhamaaday cod ma helayo waa la iskugu tagayaa laakiin intay joog jaajuuska power ma intay magacaawid iyo ergo konton iyo kow iyo ergo boqol iyo kow ergo intay joogto kan waa kugu dhax noolaana maalin kasta wuxuu sheegayaa madaxweynaha wuxuu ku quracday Angela Malawa way ka gudba marka telefoon u diraya ha haduu u diri lahaa dalka reportka u diraya hadii talihiisna sugid uu la hadli lahaa madaxweynaha dalkaas uu la hadli lahaa soo fiicnaan leen kuwa yar yar oo ofisar ah wuxuu la hadlayaa oo qayb yar ka heesta nabad sugudaha ay la hadlaan kuwa yar yar ay la hadlaan hatta kuwa weyn ma garan hatta qaarkood arabta markay la hadlaan malabaha markuu sheego Angela Malawa waxa la soo baaraya 15 daqiiqo ay leeyin Angeladan maalin walba ay Soomaalidu cunto maxay tahay waa ka gudbinaad waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo arinta la taliyaasha waxa tiri la taliya aan 60 maalmood ama intaas oo maaragtay bilood aan arkaynin hotelka uga sii hormaraya madaxweynihii soo chance ka u helo waxa la jeedaa madaxweyne waare waxa ka keenay inuu sida u hadlo madaxweynaha waliga ma asaasada la jeedaa fiiri horta la taliye markaad noqoto maalmo madaxweynaha waa la joogaysaa joogto markays runta waa inaan ku sheego maalmo waa la joogaysaa madaxweynaha report gareynay madaxweyne hooshii aan kala talinay meeshaas maraysa madaxweynaha markuu arko inaad been fara badan u sheegayso oo aad iska hadlayso waxaan wada aan waxba ka jirin waa weyneba telefoonku ka maba ka qabanay telefoonku hada maalin walba hadaan ku yiraahdo nuurow de waxaas aan kugu soo celceliyo qaar waxaa jir la taliyaala kaararkii la taliyeenimo ka dhacay villa Soomaali kaar waxay samaysaa 12 bilood ku eg sanadka 12 bilood Soomaa ay samaysaa wallahi la taliyaal waxaa jir madaxtooyada villa Soomaali ka tirsan kaararkii ka dhacay inay madaxweyne arkaan iska dhaaf looma jadiidin magaalada Muqdisho markaan isgoosiyada askarta joogo baabuurka markii la baarayo yaa saaran qof mas'uul ah saaran qaar keen markii la qaar ku baxsana warkan waa 2022 waa dhacay
maya waxba ii maqan waa la jadiidinaya mashiinkii madaxtooyada xalaysan madaxtooyada ma bageli kartay mashiinkeeda inuu xalaysan in kal maxaa ka ogta askartii wuxuu kula dooda mashiinkii madaxtooyada xalaysan ha qof xil haya wasiira waa la gartay bolosiga dawladdu ku shaqeeya hadduu ka baxa bolosigana waa la bedelaa rashafala lagu sameynaa laakiin la taliye hadlaaya haddaad aragto waxaa ku tidhahdaa kaarkii sanadlaha ahaa ma dhacay mise weli intaas kaliya ku dheh inta kaliya weydiin inta kaliya weydiin jawaabka hadduu ka soo saaro hadduusan dhicin bilaa ka dhiman laakiin mar walba wuu dhici lahaa sooma wuu dhici lahaa laakiin siyaasadii iyo aktifnimadii lagu jadiidiyo dadkii soo saara inay xiriir la leedahay sooma dib loo cusboonaysiiyey dib loo cusboonaysiiyey tusaale 2023 hadduu dhaco 2024 January la gaaro hadduusan 2024 January kaar aadan haysanin kaar cusub ma haysatid waxaa haysta kii bishii 12aad ku ekaa 2023 ah see marka la taliyo ku tahay kaarka waa ka dhacay aad baa mahadsan tahay way aan ku noqono marka dagaalka shabaabka dagaalkan hadda socda ee aad tiri madaxweynaha iyo taliyaha nabad sugidda kaliya daacad ka ah siday guul ku gaari karaan baa isleedahay ama guul looga gaari karaa hadiiba madaxweynihii iyo taliyaha nabad sugidda cidii kale la shaqeynaysay aysan dagaalkii daacad ka ahayn madaxweynaha iyo taliyaha nabad sugidda dagaalka inay daacad ka yihiin horaantii waraysigan kugu sheegay ayaga waxaa laga rabaa dadka aan dagaalka daacadda ka ahayn xukuumadda ku jira inay iska bedelaan ganacsatada weli rabta in al-shabaab ku dhex nabadgalaan si fiican in aad u fahantaan rabaa warkayga ganacsato waxaa jirta oo maalin walba ku fikiraysa al-shabaab wax dhibaaya haddaad samaysiin ama dawladda haddaad taageero lacageed taageero maaliyadeed aasiisiin ama al-shabaab dhibaato idinka soo gaaraysa al-shabaab iyo xasan sheekh maxamuud iyo al-shabaab iyo mahad salaad way ishaayaan hal kambani ayaan rabaa inaan uga digo inaysan u malayn inay al-shabaab ku dhex nabadgalayaan kambanigaas waxaa la yidhahdaa shirkadda hormuud doorashadii Soomaaliya 15 May oo Xasan Sheekh Maxamuud ku soo baxay shirkadda hormuud waa ogahay musharax bay 6 milyan siisay markay musharax 6 milyan siinaysa Soomaaliya soo ma garab taagneen doorashada Soomaaliya inay si nabad ah ku dhamaato qofka ay rabto musharax inuu soo baxo ma rabin Soomaaliya hadda isgoos taaganta shirkadda hormuud haddaysan al-shabaab dagaalkiisa ay lacag ku bixin ayada lacagteeda ku weyne say ugu weyne waxay ugu weynaysaa kambanigaas dhan dawladda federaalka Soomaaliya iskale ma hormuud say u leedahay telefoonka Safaricom dawladda Kenya soo iska male shirkad baa iskale Safaricom leeyahay shirkad oo laakiin wasaaradda boosti isgaarsiinta waxaa jira furo wadan kasta lagu soo galo furaha numberka Kenya 2547 lagu soo galaa dawladda iskale furaha shirkadda way ku shaqaysataa furaha Soomaaliya 2526 lagu galaa dawladda iskale wixii soo jiri jiray ama wax hadda dhacay ama wax imaan doona wixii soo jiri jiray haday ahaayeen shabaab wax hadda dhacay hadda lala qabsanin shabaab way dhamaanayaan waxa imaan doona Xasan Sheekh Maxamuud waa baxa 4 sano kadib Xasan Sheekh Maxamuud oday waaye dad uu diyaarinaya wadankan meel uu ku ogaana bari waxa laga yaabaa nuurow ani inaa madaxweynaha Soomaaliya noqdo waxa laga yaabaa adi inaa noqoto lugooyada maanta socota waa mid tan bari qatar ku ah
lugooyada maanta socota waa mid tan beri khatar ku ah khatartaas aday ku imaan karta muwaadin Soomaaliyeed anay imaan karta al-shabaab inay joogaan ciddan ugu jirto malaha haddii shirkadda isgaarsiinta Hormuud ama ganacsiga kala duwan oo Sheekh Axmed Nuur Jimcaale uu leeyahay hadduu ku fikiraayo in ururka al-shabaab dhexdiisa ku nabadgelay muku nabadgalayo anoo siyaasi Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah berito wax soo socdana qiyaasay shabaab beri ma joogayaan maanta Xasan Sheekh waa baxa Xamse waa baxa xukuumadda waa bixi waqti markii la gaar doorasho la qabana beri waxa laga yaabaa Nuurow adiga inaad wasiir noqoto ani inaan gudoomiye baarlamaan noqdo inaan madaxweyne noqdo inaan ra'iisul wasaare noqdo aqabad ma ku dhex noolaanayna mustaqbalkeeni aqabada isku dhex jiraa bar kasta miya isku ma dhex jiraa aad iyo aad buu mahadsantahay waaye marka la fiiriyo hadda maalmo dhaweed waxaan arkaynay iyada oo rag waaweyn oo shabaabka muhiim u ahaa ay dawladda soo dhiibeen oo wasiirro iyo xildhibaano iyo isku soo sawirayaan oo waliba qaarkoodna ay leeyihiin waxa weeye sida Mukhtaar Roobo xil u qabtay bay xil iyaguna u qaban doonaan ka war arrintaas ay kula muuqataa shabaab inay soo dhiibaan waa wax loo baahan yahay fikirkii hore ay ku jireen inay ka soo tanaasulaan waa wax loo baahan yahay in la soo dhaweeyana waa wax loo baahan yahay Mukhtaar Roobo markuu imaanayo waxa soo dhaweeyay wasiirka gaashaandhigga Cabdirashiid Ali raada 2017 iyo jaamacan hadda wasiirka gaashaandhigga ah oo taliye ku xigeenka nabad sugidda ah ayaa inta diyaarad qaatay xudur ka soo wada wasiir inuu shabaab soo dhaweeyo hadda uma horeyso marka sababta Axmed Fiqi loogu eedeynayo inuu wasiir nin amiir shabaab soo dhaweeyo waxba kama jiraan ceed ma noqonaysa taas 2017 wasiirka gaashaandhigga iyo taliye ku xigeenka nabad sugidda hadda wasiirka gaashaandhigga ayaa Mukhtaar Roobo xudur ka soo qaaday diyaarada lagu soo qaaday Mukhtaar laakiin wuxuu ahaa jabhad kale oo shabaab la dagaalamay oo door ku jiraan yiriyo maaragtay al-shabaab ahayn markaas kan hadda la soo dhaweeyay wuxuu qaban jiray yaqaan soo ta ku sheegay shabaab naftirkooda dad jaajuusiina dawladda xiriir leh inay ku jiraan dawladda laga yaabo inuu wacday lagu soo xiray dawladda shabaabka naftirkoodii shabaabka waxa ku jira dad dawladda Mukhtaar markii la soo dhaweeyay dawladda Ingiriiska ayaa u dhaxaysay dawladda Soomaaliya Mukhtaar Roobo markii la soo dhaweeyay dawladda Ingiriiska ayaa dawladda Soomaaliya ku xiriirisay kan la soo dhaweeyay Axmed Fiqi soo dhaweeyay inuu dawlad kale xiriir la leeyahay maxaan ka ognaa soo ta ku sheegay waa amaranahay waa amar dhan kasta ka amaranahay soo ta ka la hadlay waa marka waa isdhax fadhinaa way hadda tiraada waa isdhax fadhinaa qof kasto siyaasi qof kale siyaasi oo ku maqlay dawladda uu jaajuus u yahay waa isdhax fadhinaa uu sheega intaas uu sheega hadda wargalka waa yaata ha isdhax fadhinaa uu leeyahay marka waa amaranahay ha aad iyo aad baa umahadsan tahay Cabdisataar waa ku mahad celinayaa maaragtay fursadda aad nasiisay iyo sida aad wareysiga nooga aqbashay haddii aadan wax kale ku darayn intaasan jeclayna kusoo gabagabay waa mahadsan tahay Nuurow intaas noogu ekay waayahay intaasan kusoo gabagabaynayaa wareysigan aan la lahaa mudane Cabdisataar Xasan Cali oo ah siyaasi dhalinyaro ah ku sugan magaalada Nairobi intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo